raaga ugaas iyo kalgaceelku Faadumo xaaskiisa u qabay. raaga ugaas wuxuu ahaa gabayaa hal abuur heer sare leh, geesinimo ku darsaday. wuxuu ahaa qof lagu qiyaas qaato marka qof kale la sifeynayo, oo waxaa la dhihi jiray aftahannimadu sidee raaga ka yahay, geesinimadu sidee raaga ka yahay. raagi ayaa maalin maalmaha ka mid ah cilmi xuseen oo abtigiisa ah wuxuu ka doonay gabar uu dhalay oo cabban la dhihi jiray oo aad u qurux badneed. raaga gabadhii cabban waa la siiyey, waana lagu xididay. ayadoo nikaaxa uu dhicin ayuu raaga reerkiisa u dhaqaaqay si uu u soo tabaabusheysto. hase yeeshee asagoo arooskii weli u tabaabusheysanaya ayaa nin kaloo culus gabadhii soo doontay. ninkaasoo ah Axmed Garaad Wiilwaal, oo ah wiilka Garaad Wiilwaal oo ka talin jiray galbeedka Soomaalida. Wiilwaal wuxuu ahaa taliye jiitaa ah oo aan cidna maya dhihi karin. odaygii gabadha wixii ugu wacnaaba kuma dhihin raaga ugaas ayaan cabban ku xididay, nin kalena ku xididi maayo. ama wuu yiriye laakiin wuu ku adkaysan waayey. si kasta ha ahaatee Axmed Wiilwaal geeli waa laga guddoomay, gabadhii cabbana waa loo dhisay. beri dambe raago warmooga ah ayaa reer abtigii u soo hoyday. wixii dhacayna wuu ogaaday, aad buuna uga carooday raage. ugu dambeyntii wadahadal dheer oo lagu daalay kadib ayaa oday cilmi raago u soo jeediyey talo uu islahaa wuu ku raali noqon doonaa. wuxuu ku yiri, maandhow lacibooye, Faadumo oo cabban ka yar baan ku dhisayaa, anigaana kugu xooleen oo aan ku duceeyay, sidaa raali ku noqo. taana raaga wuu ogolaaday. asaga iyo Faadumona intay isguursadeen bay si aan la filaynin aad isu jeclaadeen. Faadumo waxay ahayd qof xilkas ah oo aad u dhiirigelisay raage. raggana sida la ogyahay lamaanaha dhib iyo dheef ku garab istaaga aad bay u jeclaadaan. muddo hadday wada joogeen ayaa Faadumo reer aabaheed u dhibaat doonatay. markaasaa soo noqodkeedii waxaa lagu soo sabootiyey dhibaat fara badan oo wax alla wixii cid ladani gabdhaheeda ku dhibaadin jirtay ayaa loo soo raray. Faadumo kaligeed lama soo dirine waxaa lagu soo diray adduunkaas reerka ay ka kala timid rag la gaarsiiyo meeshii uu reerka raagi ay deganaayeen. waxay dhabahayaanba ayaa goor casirley ah ayaa waxa u soo muuqday barinkii reer raaga ku jireen. kolkaas baa nimankii gabadha lagu soo daray waxay ku tashadeen si dhibaada ay wadaan goor barqa ah ay dadkoo dhan u wada arkaan. afaafka reerka aan habeenka inay isaga furtaan oo baryaan. beri fogna subaxdii inay cidda galaan. ha yeeshee Faadumo way diiday oo waxay tiri, raaga oo intaa ii jiro lagama yaabo caaba inaan halkaan seexdo. dabadeedna waa inoo berito ayay nimankii ku tiri oo waxay u dhaqaaqday shanqarta reerka xaggii ay ka soo yeeraysay. maxaadse ka falaysaa nasiib darro, ayadoo socodkii ku jirto ayaa libaax baahan geedo jiq ah kaga soo baxay oo markiiba laba isla eg ka dhigay, gaajadiina isaga reebay. raaga markuu maqlay arrinka dhulkaa la wareegay. bari iyo galbeedna ayaa isaga darmay. habeenkaas iyo habeenadii xigayba il iyo bahar isma saarin. markaasuu tixyo gabay ah oo baroor diiq ah tiriyey. tixda qayb ka mid ah waxay tahay, kumbulkiyo ardaagii miyaa laygu kaliyeeyey, wixii laygu kuuniyey miyaa iga karaamoobay, kumbuskii miyaa layga qubay, kolayo ii buuxay, maantana kataankii miyaa layga kala qaaday, kob abaar ah meel dhexe miyaa koore ila meeray, kub miyaan ka jabay biixi aan kabaya loo haynin, 1,000 kurtood dumar ah haddii laysu wada keeno kolna waxaan helayn haween Faadumo kale. gunaanadka sheekada waa, ragow sida raage oo kale ha iloobin inaad mar walba u sheegto xaaskaaga inaad jeceshahay. maxaa yeelay jaceylku waa dumarka shidaalkoodii.
dumarow idinkana ha iloobina inaad noqotaan sida Faadumo oo kale oo noqda qof xilkas ah oo ixtiraam badan. mahadsanidin waa walaalkiin Baazi Busuri iyo barnaamijkii horumar ummadaada oo aad ka daawanaysaan TV-ga caalamiga ah Universal Somali TV. barakallahu